abbaaro 8 subaxnimo ee saaka ayaa qaru xoogan waxa uu ka dhacay gas control afkooyay qaraxa oo inta badan joogtiisa laga maqlay xaafadaha magaalada Muqdisho ayaa waxa uu mid ismiidaamina kaas oo loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa wararka ayaa sheegay in qaraxa lagu weeraray xarun cashuurta lagu ururiyo oo ku taalo halkaasi isbitaalada magaalada Muqdisho ayaa la ciirciiriyay meydadkii dadkii ku dhaawacmay qaraxan waxaana wali socda dadaalka dadka dhaawacmay lagu gurmanayo dhimashada ayaa si cagcagaynaysa ka badan 100 ruux sida laga soo xigtay saraakiisha caafimaadka isbitaalada la geeyay meydadkii dadkii ku dhaawacmay qaraxa isbitaalka Madiina oo kaliya ayaa la sheegay in la dhigay meydadka ku dhawaad 70 ruux waxaana sidoo kale jira meydad iyagana la geeyay goobaha caafimaadka Muqdisho iyo kuwa kale oo qaateen qoysaskii ehelada ka soo jeedeen waxaana soconaya baadigoob wali dadka qaar ay ugu jiraan dad ay ehel ahaayeen oo ugu wardambeysay ka hor intuusan qaraxu dhicin mid kamid ah xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya ayaa sheegay in marka la eego saameynta qaraxan uusan waxba kaga duwaneyn kii 14 Oktoobar sanadkii 2017 ka dhacay isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho qaraxaas oo sida laga warqabo ilaa iminka aan cid sheeganin dadka waxyeelada soo gaadhay ay isugu jiraan arday bas saarna ciidan ku sugna halka lagu qaado cashuurta iyo injineero ka socday dawladda Turkiga kuna hawlana dhameystirka wadada isku xidha Muqdisho iyo Afgooye sidoo kale waxa jira waxyeelo soo gaadhay dad shacab ah oo xaafadahooda ku sugnaa iyadoo la sheegay inay jiraan guryo badan oo ku dumay dadkii deganaa ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ayaa sidoo kale goobta buuxdhaafiyay kuwaas oo gabi ahaanba xiray dhaqdhaqaaqa isgoyska Egas Control Afgooye dhan kale khasaare maaliyadeed ayaa la soo warinayay inay halkaasi ka dhalatay waxaana gubtay gaadiid iyo kaalin shidaal halkaasi ka agdhaweyd gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqna magaalada Muqdisho Cumar Filish oo warbaahinta kula hadlay goobta qaraxu ka dhacay ayaa sheegay in gaari weyn oo kuwa xamuulka qaada lagana soo buuxiyay walxaha qarxa u geystay qaraxaasi dadka waxyeelada badankeeda soo gaadheen ay ahaayeen dad shacab ah waxa kale oo Cumar Filish bogaadiyay ciidamada amniga oo sheegay inay iska hortaageen in qaraxa magaalada Muqdisho la galo isagoo arrintaasi ka hadlayna waxa uu yiri wuxuuna sababay dhimasho badan iyo dhaawac badan fara badan dhimashada tira rasmi ah ilaa iyo hadda ma hayno dhaawacu waa 9 sida hadda ay noo sheegeen goobjoogayaashii tirada dhimashada oo rasmigaana gadaal ayaan ka ogaan doonaa laakiin ma yara dhimashadaas waxay u badnayd arday u socotay dugsiyadaha iyo jaamacadaha number weyn ama tiro badan oo ardayda ah waxay ahaayeen jaamacadda Banaadir inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun Allah u naxariisto dadkaas ku dhintay halkaas waxay ahaayeen dad aan waxba galabsan shacab rayid ah intooda badan waxaa laayay dadkaas dhagari qabayaasha ku soo duulay dalkeena Soomaaliya dhanka kalena madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka hadlay qaraxa saaka ka dhacay Egas Control Afgooye oo ah wadada Afgooye waxaana madaxweynaha Farmaajo weerarkaasi ku eedeeyay kooxda Al-Shabaab walow aan Al-Shabaab sheeganin weerarkaasi ugu dambeynna madaxweynaha Farmaajo waxa uu dadka Soomaaliyeed ugu baaqay inay u gargaaraan ay taakuleen gaarsiiyaan dadka qaraxaasi wax ku noqday Bismillahirrahmanirrahiim inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun saaki subaxdii waxa dhacay qarax meesha loo yaqaano Ex Control aada wadada Afgooye halkaas oo ka dhacay qarax aad iyo aad u weyn ayna ku laadeen dad fara badan oo isugu jira dad danyar oo kala hayay nolol maalmeedkooda oo kala hayay shaqadooda si ay u qoodiyaan reerkooda iyo caruur u kala hay iskuuladooda oo da'yar iyo dad badan oo aan waxba galabsan oo ka shaqeynaya wadada u dhaxeeya Ex Control iyo Afgooye oo ka shaqeynaya wadada dhismaheeda waxaan leeyahay waxay ahaayeen shuhado Ilaahay ha u naxariisto jannadiisa iyo naxariistiisa Allah siiyo qaraabadooda iyo ehelkooda iyo asxaabtoodana samir iyo iimaan Allah ka siiyo waqtiga ku soo beegantay waxay ahayd waqti lama filaan ah oo dadku ay u socdeen nolol maalmeedkooda ujeedka ka dambeeyana waxay ahayd inay ummadda Soomaaliyeed ay argagax galiyaan oo ay qalbi jabiyaan oo ay ku xasuuqaan fursad kasta ay u helayaan
waxaanse leeyahay ummadda Soomaaliyeed iyo dowladoodu marna lama qalbi jabin karo, marna lagama hor istaagi karo horumarka dalkan iyo dibdhiskiisa. kooxdan argagixisada ah ee shabaab waa koox u shaqeysa argagixiso caalami ah oo loogu soo diray ummadda Soomaaliyeed, dalka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed inay xalaaleystaan dhiigooda, ay xasuuqaan ummadda Soomaaliyeed, ay burburiyaan wax dhismo ah. shabaab wax ma dhisaan, waxbay dumiyaan. ma dhisaan iskuulo, ma dhisaan goobo caafimaad, ma quudiyaan shacab, kama shaqeeyaan mustaqbalka carruurta Soomaaliyeed. waxay ka shaqeeyaan oo loo soo contract gareeyay oo loo howlgeliyay inay ummadda Soomaaliyeed ka hor istaagaan horumarka, inay laayaan shacabka Soomaaliyeed, inay laayaan carruurta Soomaaliyeed iyo mustaqbalka dalkan uu leeyahay. waxaan ku adkeenayaa xukuumadda ama aan farayaa inay si degdeg ugu gurmadaan shacabka Soomaaliyeed oo halkaas lagu xasuuqayo cisbitaalada yaalla, ay si degdeg u gaarsiiyaan wax alla wixii taageero ah ay la gaari karaan. shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay inay iyaguna garab siiyaan dadkaas waalahooda cisbitaalada yaalla, wax alla wixii taakuleyna ay la gaari karaan la gaaraan. waxaan Allah uga baryayaa intii halkaas ku dhimatay maanta inuu Ilaahay jannadiisa naxariistiisa siiyo, eheladoodii iyo qaraabadoodii iyo asxaabtoodana uu ka siiyay samri iyo iimaan. dhibkan maanta dhacay wuxuu noo yahay cashar joogto ah. dalku wuxuu ku jiraa dagaal, inaan u feejignaano argagixisada maalin walbaba waxa ay qorsheynayso inay tahay inay layso shacab Soomaaliyeed, aysan u socon dadka u shaqeeya dowladda. waxaa loo baahan yahay inay arinta maanta dhacday oo argagixisada ah oo naxdinta leh inay namideyso oo aan hal meel uga soo wada jeesano la dagaalanka argagixisada iyo cidda la shaqeysata. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya isna tacsi u diray dadkii ku waxyeeloobay qaraxii maanta ka dhacay isgoyska Egas Control afgooye, waxaana uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay taageero u fidinayso dadka aan waxba lagaga qaban karin gudaha dalka oo dibadda loo daadgurayn doono. magaalada Muqdisho ayaa sanadkan sii galbanaya 2019 waxay martigelisay tiro qaraxya oo geystay khasaare mood iyo noolbale. guddoonkii la soo dhaafay ammaanka magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa yara xasiloona, waxaana halbale ka waday ciidamada ammaanka.